wafdigan wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta ee Soomaaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi uu hogaaminayay socdaalka shaqo ku yimid gobolka Buuhoodle ayaa ujeedadiisu ahayd xoogaal u noqoshada xaaladda guud ee gobolka Buuhoodle waxaana wafdigan wasiirka hawlaha guud ee soo gaaray gobolka Buuhoodle xubno ka ahaa saraakiil ka socday wasaaradda hawlaha guud ee Soomaaliland iyo xubno ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Buuhoodle iyo Sool lugtii u horeysay ee socdaalka wafdiga wasiirka wasaaradda hawlaha guud Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi waxa ay ka bilaabeen degmada Qurulugud oo kamid ah degmooyinka waaweyn ee gobolka Buuhoodle waxaana halkaasi kulana ku dhexmareen maamulka iyo bulshada degmada Qurulugud iyagoo oo ka wada hadlay sidii la iska kaashan lahaa horumarinta degmada Qurulugud gaar ahaan xoojinta iyo isdhexgalka bulshada gobolka Buuhoodle waxaana halkaasi ka hadlay maayirka degmada Qurulugud iyo barasaabka gobolka Buuhoodle Cabdirasaaq Ismaaciil Axmed mudane wasiir ku soo dhawow degmada Qurulugud oo ah degmadaadii gobolkaagii iyo deegaankaagii mudane wasiir halkan waxa ka jira nabad kalsooni iyo soo dhaweyn aanu aad adiga iyo maamulka gobolkaba ugu kalsoonahay oo deegaanku ugu kalsoon yahay oo diyaar u yahay midaynta gobolka waxqabadka gobolka iyo nabadgelyada gobolkaba in aanu si ballaaran dadweynuhu uga qayb qaataan oo deegaanku uga qayb qaato uu diyaarku ugu yahay socodkaagan hawlihiisu way iska badan yihiin marka waxaan ku dareensiinaynaa deegaanka bableeshka ku nool in ay u badan yihiin dad maxaysata oo dadka xooluhu ka baxeen aan waxba haysan oo dad baahana marka كل wax ka qabashadeeda iyo kulankeeda iyo aragtideeda baxamanayda kaaga shakal maanta aad diyaar ah dhankiisana wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta ee Soomaaliland ayaa la hadlay bulshada deegaanka Qurulugud wax laga hadlo horta nabad baa weyn marka ugu horeysa ilaahay waxaan ka baryayaa in dadka deegaanka ee wada dhashay ee isku gobolka isku deegaanka ee cid kala sooci kartaa aanay jirin ilaahay waxaan ka baryayaa horta inuu nabad dhex dhigo ilaahay waxaan ka baryayaa wixii shayaadiina in alla ka qabto qofka fidnada taliya ilaahay waxaan la hortegayaa inuu wax ku dambeeyo inta kadib wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta ee Soomaaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi waxa ay socdaalkooda shaqo ku sii mareen deegaanada Meygaagle Soorjoogto iyo Shanganle halkaasi oo si miisaan loogu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda hawlaha guud ugu dambeyn wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo wafdigiisu waxa ay soo gaareen magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Buuhoodle dabaaldeg iyo damaashaad lagu soo dhaweeyay kadib wasiir Qambi iyo wafdigiisa waxa ay dadweynaha reer Buuhoodle kala hadleen garoonka kubadda cagta ee magaalada Buuhoodle waa soo dhaweynaa wasiirka iyo madaxweynihiisa iyo dawladdiisaba waa soo dhaweynaa si kalgacal leh oo kalsooni leh baanu soo dhaweynaa cabdirashiid sacad al-wasiir adaa dawladda Soomaaliland maanta ka wakiile siyaasadii Soomaaliland way ka fushay ayne wax qabadkiini baa la doonaya ragga ciidamada ururinaya ee xeelka daafiisa ku ururinaya ee doonaya inuu halkan xabada ka socota meesha la yiraahdo Garowe uu halkan ku soo celiyo ما قلنا waxaad maanta muujiseen oo idinka muuqday gobonnimadii iyo sharaftii iyo geesinimadii laydinku yiqiinay ayaad muujiseen haddaad tihiin reer Buuhoodle waxaan idiin ballan qaadayaa oo idiin sheegayaa Buuhoodle horumarkiisa iyo nabadiisa waxaan ahayn in aanan ka shaqayn baan ballan ilaahay idinku qaadaya dawladda Soomaaliland ee uu Muuse Biixi Cabdi ka madaxda yahay xaqiiqdeeda iyo xaqiiqda jirta markaan idiin sheego Buuhoodle nabad inay kaga shaqayso oo wanaag kaga shaqayso oo horumar kaga shaqayso oo dadka sidii loo kasban lahaa uga shaqayso ayaa arrinkeeda koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraad iyo ka shanaad bayihiin Cabdiqaadir Xuseen Nuur Dacar iyo Maxamed Saleeman Siigeye warbaahinta qaranka Buuhoodle